يوغندا اسمها الله دي حقنا أنا لو كنت عبد الكريم شيخ موسى أصابهم موادلة الله سوماليا برمجة قبضي عنده قبضي الميس موقرك وحرم قابي نزل شو waxaan halkan isugu nimid annagoo ah bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaanu dareenkanaga ku muujinno dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyay halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya laguna wareejiyay cadawgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadinaa dalabkanaguna waxaa weeye Cabdikariin hala soo celiyo dalabkanagu intaa weeyaan dawladda ka codsanayno waxa weeyaan mudaharaadkanagu waa saas weeyaan waxa raalli kama nihin bulshada Soomaaliyeed raalli kama aha waxa weeyaan oo anagu aan doonina oo Soomaali doonaysa dhammaanteed in aanu noqono dal mustaqila oo madax bannaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanagii muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin waxaanu ka codsanaynaa madaxda iyo maxaan ku dhahaa mas'uuliyaadka hadda xilka haya dhacdadan jariimada ay ku kaceen sidii ay ugu kaceen markii hore u galeen inay ka bedelaan oo soo celiyaan muwaadinka ujeeddanadu inta baaqa shacabka ugu baaqayaan intaas weeyaan walaal anaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxaa la dhibay isniintii in Muqdisho lagu jirdilay baasab meesha fiisada Itoobiya loo sameeyay oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhibay xaqiiqatan muxuu yidhi anigu muwaadin Soomaaliyeed baan ahay ummadda Soomaaliyeed saahayla dhaqmin dilya nololba waan galaay waa la jirdilay waa la kaxeeyay rag Soomaaliyeed oo madax sheeganaya la kaxeeyay eeraboodka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyay raggii Soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray Uganda isma loo dhiibay xaqana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo mawaadila talay Soomaaliya برمجة قبضي عنده قبضي الميس موقرك وحرم قابي نزل شو